muxuu yahay maseerka maxaase keeno mawduuceena maanta waxaynu uga hadli doonaa muxuu yahay maseerka maxaana keeno ama maseerka muxuu yahay sidiisaba maseerku waa shay bini'aadanku uu ka wada siman yahay marka la yiraahdo maseerka qof walbo insaana wuu maseeraa hala kala darnaado hala kala dhibadnaado qofba qofka kale maseerkiisa isma gaarsiisana laakiin maseerku waa wax jira maseerku waa cad ka abuuran insaanka ama qof walba oo noolo ah kaas uu ka maseero qof kale wuxuu ku arkay ama qof kale saameyntiisa ama qof kale wuxuu haysto ama qof kale noloshiisa qayb qofka inuu ka maseero inta aana laakiin muuqaalka gudaha u galin mawduuceena maanta aanan ka hadlin waxaan kaa codsanaynaa inaad laygarayso muuqaalkani siina sheer garayso si ay u gaaraan saaxiibo badan oo sidaadoo kale u wanaagsan inta badan maseerka midkiisa halista ah waa kan ku dhaca ragga iyo dumarka isqaba ama uu ka dhasho dhexdooda ama ragga iyo dumarka xiriir wadaaga ah ee xiriirka leh ee aanan weli isguursan waana midka ugu saamaynta badan maseerka lamaanaha dhexdooda ka dhasha wuxuu inta badan salka ku hayaa jacayl xad dhaaf ah uu qofka maseerayo u qabo qofka kale uu ka maseerayo waa kan ugu badan ee lamaanaha sabab u noqda kala tegidooda haddaysan si degdega isaga daaweynin ma jiraan waxyaabo maseerku daawo u ah sidee lagu daweyn karaa cudur walba oo jira wuxuu leeyahay daawo maanta waxaan kuu qorayaa maseerka daawooyinkiisa haddaba si fiican u dhegayso sidee la isaga daweyn karaa maseerka qodobka ugu horeeya marka hore kalsoonida qofka soolis waa inaad qofka kalsooni u muujisaa asna uu kugu kalsoon yahay haddii labada dhinac kalsooni ay jirto labada dhinac kalsoonidu ay dhisan tahay waxaa yaraanaya maseerka tirada badan leh qodobka labaad ka dhiga qof aad kuugu dhow dhammaan dadka oo idilkaaga dhow qodobka saddexaad ha ka fikirin in qofkani uu ku qiyaamayo ka waran haddii maskaxdaadu mar walba uu ka dhex guuxayo qofkan uu ku qiyaamaya uu ka tegayaa uu ku nacaya taas macnaheedu waxay tahay meesha kalsooni ma jirto haddii taas ay imaatana waxaa imaanaya maseer aana wax lagu qiyaasi lahayn qodobka afraad iska ilaali shakiga tirada badan leh haddii shakigaaga uu bato waxaa badanaya maseerkaaga qodobka shanaad qofkaaga xur ka dhig ha ilaalin haddii ka waran maantoo idil qofkii aad isla socoteen aad taleefankiisa ka dawareegayso intee u socotaa intee ka imaatay waxani maxay yihiin haddii aad leedahay waxaa badanaya ama maseerkii wuxuu noqonayaa mid aad u badan qodobka lixaad qofkaaga ha saarin culays badan waa inaad qofka aad xiriirka leedihiin ama asqabtaanba inaadan saarin culays aad u badan qodobka toddobaad iska ilaali waardiyaha badan ka waran haddii maanta dhan aad daba joogto ood waardiyeynayso taas macnaheedu wuxuu yahay inaadan qofka ku kalsoonayn waxaana meesha ka dhalanaya maseer sideed ama qodobka sideedaad qofkaaga ha daba dhigan oo ha raacraacin khaladkiisana mar walba haraadin haddii qofkaagii mar walba aad qaladkiisa saraadiso macnaheeda meeshaas waxaa ka dhalan doona ama soo socda inaad maseeri doonto qodobka sagaalaad qofkaaga sii kalsooni dhammaystiran ku kalsoonaa qofkan kalsooni ku qab kalsoonidu haddii meesha ay timaado waxaa yaraanaya maseer haddii ka waran intaas qodob aan soo sheegay ama sagaalkaas qodob aan soo sheegay daawo oo ay u noqon weyso qofkii uu ku daawowi waayo maseerkiina uu ku yaraan waayo maxaa xal u noqonaya marka qodobadan haddana fiiri qodobka ugu horeeya xalkama cusla ee adiga isdeji adiga nafsadaada deji wax weyn ma xalku waa la gaari karaa qodobka labaad wuxuu yahay qofku waa inaad dareensiisaa jacayl xad dhaaf ah qodobka saddexaad ha u muujin inaad zaa'id ugu baahan tahay mar walba macnaha haddii qofku uu arko inaad zaa'id ugu baahan tahay wuxuu sameynayaa wax walba oo baahidaada ay kusii badan karto ayuu samaynayaa haddii taas uu sameeyana maseerkaaga badanayo qodobka afraad dareensii inaad tahay qayb asaga ka mid ah ha ka badbadin keliya waxaad dareensiisaa inaad qayb asaga ka mid ah aad tahay qodobka shanaad tusi la'aantiisa inaad noolaan karto waxaad tusisaa inaad la'aantiisa qofka noolaan karto qodobka lixaad isla markaana tusi inaadan ka maarmin macnaha adigoo tusinaya inaad la'aantiisa noolaan karto haddana waxaad u muujisaa inaad la'aantiisa aadan noolaan karin labadaba isugu dar qodobka toddobaad adigoo jecel haddana ha dareensiin inaad jeceshahay qodobka sideedaad qofkaaga muhiim ha uga dhigin jacaylkaaga qodobka sagaalaad wax walba faraha ka qaad wayna hagaagi doonaan marnaba jacaylkaaga buuq iyo qaylaha ku lumin hana iska dhaadhicin keligaaga inaad qof jecesha ama qofka aad jeceshahay oo qofka kale qaybtiisa sii jacaylka qofka kale qaybtiisa waa inaad siisaa jacaylka ama inuu ku jecel yahay waa inaad dareentaa adiga xumaanta iyo kala fogaanshaha u noqon sababtay ku imaan lahayn adiga sabarka badi oo dulqaad muuji adigoo baahi ay ku haysana adkayso si aad guul u gaarto naftaada ha ku dhibin waxay xamili karin sababna ha u noqon naftaada inay ciriiri gasho adiga waxaan hubaa ugu dambayn inaad guulaysan doonto